mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa shir jirayd ay ku qabteen xafiiskooda magaalada Hargeysa waxay si adag uga hadleen dhacdadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasoo si adag mas'uuliyadeeda ugu eedeeyeen xukuumadda Soomaaliland afayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani Ibrahim Mahdi Buuba oo shirkaasi ugu horeyntii ka hadlay waxa uu eedeyn u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxaana sidoo kale afayeenku mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ugu baaqay inaanay ka hadhin baadhista sababaha dhacdadaasi keenay waxa ogtihiin oo aan doonaynaa halkaan mar labaad idin ka cadeyno wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland mar golaha wakiilada uu hor joogay oo la weydiiyay sababta keentay in hubno loo adeegsado shacabka uu ku jawaabay dawladnimada macnaheedu waxa weeye wax la dilo wax la xiro iyo wax la dilacsiyo nasiib darran ku tilmaamay waxa ka warhayseen oo la socoteen oo ogeydeen in maamulkii gobolka Togdheer iyo maayarkii magaalada Burco shilkan dhacay markii ay ka hadlayeen ayagoo aad uga naxsan ay tilmaameen inaanay meesha oolin wax araariyo loogu yeero inaanay oolin haba yaraatee wax bad loogu jawaabaa dhanka kale injineer Cabdirashiid oo kamid ah madaxda guddida arrimaha dibadda ee xisbiga wadani ayaa isna jawaab ka bixiyay eedaha xukuumadda Soomaaliland ay soo jeedisay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee injineer Faysal Cali Waraabe eedahaasi oo la xidhiidha kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan leeyahay wasiirka حالي كهذا لي أرنتي فيصل وزير تقرأ آية وتنسى آية وحوي وحين أوجين ودوان دعضي إن وزير كمدحتوية الصومال يعني وزير كمدحتوية الصومالي يدوب يكون كل من وحين أوجين إن وزير حكومة كتر سنة يستي بريرة وشيكتين إن يكهول قلين وكدم بيين doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iyagu la kulahaay waxaynu ogeyn in xukuumadda kulmiye ay dabarkii ka jartay oo sharcigii la furay oo la yiri meeshii danta Soomaaliland gasho iyo mas'uul walba halkay ula gashaabo ugu tagay waa markii ugu horeysay xisbiga wadani uu taageero u muujiyo xisbiga kale ee mucaaridka ee UCID kuwaasoo hore ugu muuqan jiray inay dhexdooda isfaham waa ka jiro daawadayaal warkayga galabnimo waa naga intaasi warkan iyo warar kale